haddii aad ku cusub tahay channelkayaga fadlan taabo subscribe like amba share si aad noo taageerto dameerkii iyo haragii libaaxa maalin isaga oo iska lugaynaya dameerkii cawaale wuxuu arkay libaax markuu ku soo dhawaaday wuxuu arkay inaanu dhaqaaqayn qonyar ayuu la hadlay libaaxow ma fiican tahay laakiin libaaxii umuu jawaabin markuu isaag taagay wuxuu arkay inuu harag libaax yahay ugaarsade ayaa meesha kaga tegay si uu u qalalo ayuu is yiri cawaale wuu gashaday haraggii biyaha baliga markuu isku arkay wuxuu yidhi libaax run ah ayaan u eekahay isaga oo huwan ayuu socsocday markuu xaafaddii u soo dhawaaday wuxuu arkay ninkii beeralayda ahaa oo ku soo socda ninkii beeralayda ahaa wuxuu u eekaa inuu baqanayo markuu soo dhawaaday qaylo ayuu bilaabay cawaale ku qayliyey libaaxow tag halkan shaqo kuma lihid ayuu yidhi cawaale wuxuu ka fikiray inay fiicnaan lahayd hadduu dad meel kala joogana ka nixin lahaa wuxuu tegay tuuladii waa laga wada cararay ninkii beeralayda ahaa oo soo dabagalay mooyaane cawaale siduu ugu farxay in laga wada baqay codkiisa ayuu sare u qaaday oo qoslay markaasaa ninkii beeralayda ahaa gartay inuu dameerkii yahay wuu u yimidoo xoogu dilay naxdintuu dadka ka nixiyey aawadeed murtida sheekada ku jirtaa maxay tahay dar fiican way qarin laakiin ereyada nacasnimada ah way kashifaan doqon haddii aad ku cusub tahay channelkayaga fadlan taabo subscribe like amba share si aad noo taageerto